dunidu asalkeedii baa la isweydiiyey xay ka soo jeeday. Where is the origin of man? Europe intii xoogga lahayd waxaana la tusay bani aadamka wuxuu ka soo jeeday Europe. Neanderthal man baa jira oo Germany laga helay, Ingiriiska laga helay, Talyaaniga laga helay, Europe baa laga soo jeeday ayaa ayaamo la isaga sheekeyn jiray. Cilmigii baa soo kordhay, waxaa la helay technology tii ka xoog badan oo runtii date si fiican u samayn karayso. waxaan la tusay haddana Asia, China, Indonesia meelahaas laga soo jeeday. qarnigii 20aad culimada baarta taariikhda, archaeology, anthropology iyo history waxay soo heleen insaanku inuu ka soo jeeday geeska Africa. waxa la yaab the origin of man is the Horn of Africa. weliba waa meesha ay Soomaalida degto. marka haddii aanu nahay we are the origin of man, marka waxaan u malaynayaa runtii waxyaabo aan ku faana ayaa jira moogtahay ummad kan cad kan madow kan guduudan kulli waxaad ka soo jeedeen Soomaaliya. nasiib daraa dhacday waxa weeye qofkii Soomaaliga ahaa yani waxyaabihii uu ku faanayay qaar baa yani qofka hadal badan waxaa la yiraahdaa waa dhaxal aabaha buu ka qaata. dowladaha aan dariska nahay gaar ahaan Ethiopia ayaa sheegatay islaam maxay yiraahdaa bani aadamku wuxuu ka soo jeeday koonfurta Ethiopia. waxa waa dalkeena koonfurta Ethiopia ka soo jeeday tibaa la iibiyey oo meel kasta la geeyay museumada la dhigay inay kamaba warqabno meesha la sheegay inaan anagu nahay. waxaan rabaa marka inaan idin tuso meelayo oo malaha qaarkiina ay maqleen oo badidiina laga yaaba inaydan maqal. Soomaaliya ma maqasheen wax la yiraahdo the Doi civilization. DOI civilization. xadaarada Doi. Doi waxa ku yaala buuraley badan baa ku yaala. culimada taariikhda qaar waxay yiraahdeen ilaa 100 weeye. buur kastaba waxa ku aasan dad oo prehistoric intaan taariikhda la bilaabin jiray laga yaabay inay boqorro ahaayeen, laga yaabay inay maxaa yiraahdaa rijaaluddin inay ahaayeen baa ku aasan. hal buur baan idinka tusayaa. buurta la yiraahdo buur Haybe ma maqasheen? buur Haybe marna waxaa la yiraahdaa buur Eyle. labada arrimood Haybe iyo Eyle waxay tilmaamayaan taariikh hore. wadaadey Haybe maxay tahay? Haybe waxa weeye dhooqada laga sameeyo clayga, pottery, dheriyaha, ashumada, idilmada, waxyaabo badan baa laga sameeyaa. waa waxyaabaha markii la raadinayo taariikh hore astaan u ah. museumkiina taga oo human history oo ku yaala Columbus waxaad eegtaan meesha potteryga. reer Columbus markay rabaan inay dadka kala faanaan waxay tusayaan jiliyo idilmo oo la jajabiyay oo dhahaan ha waagaasaan samaynay. buuraybe ilaa hadda waa laga sameeyaa dheriyadaas iyo ashumadaas iyo shaambiyaashaas waa laga sameeyaa. waa astaantii taariikheed weliba taariikhdii hore ah pre-islamic ah ayay tilmaamaysaa. Eyle waa dad adeegsada ay tabagan aygu yani reer galbeedku waxay ugu yeeri jireen waxay oran jireen man's best friend. soo ma yiraahdo hadda women's best friend inuu noqday markii la joogo galbeedka. marka aygu waxaa taariikhyahanku waxay sheegaan waa xayawaankii ugu horeeyay oo la domesticate gareeyay oo dad lagu soo daray reerka. lo iyo geel iyo arag iyo ka hor dadku waxay domesticate gareysteen ay waayo bani aadamku waad la socotaan waa iyadii hore laba xirfadood kaliya jirtay. xirfadina waxay ahayd ii sheegade ugaarsi. exactly ugaarsi. midna waxay ahayd
wax la soo guro oo gathering, hunting and gathering. This were the two professions bani aadamkii hore uu lahaa. haweenkaa la yidhi ayagaa wax soo guri jiray, ragganu waa soo ugaarsan jiray. habeenkii bay isu imaanayaan, waxay soo gurtay iyo wuxuu asiga soo dilay baa la isu keeni jiray. eygu marka wuxuu ahaa xayawaanka keliya huntersku ay ka heleen, waayo ama waxba loo soo dili ama waxaad soo dilatid buu ku ilaalay, loo dhawaan maayo haddaad keentid halkan masalan xayawaanaad soo dilatay. maanta eylada anagu waxaan idhahnaa waa dad laga roon yahay. They are not good people. eyle. In fact, we have to be proud of inaan weli dalka ku hayno elements of ancient history. ninkan eylaha aan leenahay waa soomaaligii hore, asigaa soomaali dalad ah. annaga waxaa baniri qaarkay oo carabaan ka nimid, haashimiin baan nahay. adigu mugtahay haddaad carab tahay soomaali fiican ma tihi mugta. soomaaliya daladaana matiid, waxaa kaa dhaladsan kaa soomaaliyeysan qofka aad wax ku sheegtay. ogaada carabnimadaani hor bay naga tuuraysaa runtii. waayo ayagaa waxay qabaan waxyaabo la kala saarsaaro. kani waa laandheere, kan waa laangaab. marka eylihii oo dhaladka ahaa baa la yidhi waa nin xun. I want you guys, dadka dhalinyarada ah, dadkiina oo dhan runtii inaad ku fahantaan, waayo maba jiro in the world history meel dadkaas oo kale hadda ay nool yihin. cid allaale ama soomaali allaale oo annaga aan farta ku fiiqno, anigu waxaan idin leeyahay asigaa soomaali dhalad ah. gabooyaha la sheegaayo, midgaanka la sheegaayo, kulli waa xirfadlayaashii. bani aadamku markuu soo dhaafay dherisamaynta wuxuu soo gaaray inuu samaysto hub samaystasho. birtiiba bir baa la helay, iron technology. marka dadka birta wax ka sameeya, annagu waxaan baniri waa tumaal. already calaamad baad saartay. hadda waa ninkii birta ku tumi jiray oo warshada iyo farsamada oo waxyaabaha aad wax ku samaynayo wey. tumaalku waa soomaaligii hore weeye oo ay carabta u timid. somagan cid allaale ciddaan wax ku sheegno, these are the origin of Somalis. ayaga ah waa inaan marka ku faanaa aan isu sheegnaa. Buraybe, in addition to clay pottery iyo the dark tradition, waxaad ka helaysaan waxaa ku yaala sheltero waxa la yidhahdo rock shelters. rock shelterskii waxaa ugu muhiimsan mid la yidhaahdo shelterki ama gurigii abka eedan iyo oboyhaawo. ku maqashaan gurigi? yani waxaa weeye buurtii dhexdeedii baa waxaa ku yaala meel guri oo kale u samaysan, calaamadaha ay leedahay waxbaa ku sawiran. soomaalida degsadooy way siyaartaanoo waxay yidhaahdaan waa nebi aadan iyo xaawo gurigoodii waayo. u fiirsee abka eedan waa aadan, oboy xaawo iyo obo eedan meelay ka duwanayeen way. maxay kuu tilmaamaysaa oynan kaba warqabin bibaleka, qur'aanka, isheeg tooraadka, talmuudka, tribitaakada, buug allaale buug diina wuxuu tilmaamayaa bani aadamka waxbuu ka soo jeeday. annagu waabtanyaano bani aadam baan nana mogtahay. maadaama aynu hayno aqalkiisii iyo oboyhaawo ay kula nooleed, we have to tell the world. waa inaan u sheegnaa nana look, so haddaad christian tihiin soo ma aaminsatiin aadan baa ayaa ugu horreeyey. ha soo ma jirto garden of eden wax la yidhahdo. ha halkaasay ku taalla. haddaba imaada waxaad ka helay, waxaan ka helaynaa tourism iyo adduun baan ka helaynaa. anigii baan sheeganayna waataan iri kuwa naga hadal badan baa waxaasoo dhan sheeganayo.
dheriyada iyo ashuumaha iyo meesha laga sameeyo markaad fiirisaan waxbaa ku xaradhan xaradhu waxay tilmaamaysaa waxyaabo motives oo prehistoric ah ama qabiil ama waxbay sheegaysaa ama qofka magaciisa bay sheegaysaa ama saas weeyaana waa laga agyimid laakiin 3 bog baa ii habsanaa marka waxaan rabaa inay tuso kaliya waxyaabo aan ku faano oo marka haddaan ku noqono aynu maaragtay ka faa'iidaysan karayno marka Soomaalinimadeenni waxaan foosho xun le maanta aan nalagu arkaayo inaan yaano maya anagu dadkaas aan ahaan jirnay waa dhihi karnaa